Bismillah, Assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Inta badan ardaydu waxay ku dadaalaan inay heerka guusha gaadhaan, waayo waxay aaminsan yihiin in guushu ay tahay doorashada saxda ah ee nolosha, la'aanteedna aanu qofku qiime iyo muhiimad yeelanaynin. Haddaba maanta waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa biidnillaahi kariim 10 astaamood ama tilmaamood oo lagu garto ardayga guuleysta. Ardayga guuleysta astaantiisa koowaad waa mid ku xidhan Allah subxaanahu wa tacaala, kana baqa si dhab ahna u caabuda, sameeyana wixii uu Alla amray, kana hadha wixii uu Alla ka reebay. Sifada labaad ee lagu garto ardayga guuleysta waa mid baari u ah labadiisa waalid. Ardayga guuleysta waa qof u samafala labadiisa waalid oo qabta wixii ay u diraan, kana hadha wixii ay ka reebaan, wax walbana ku adeeca haddii aanay amrin inuu ku caasiyo Ilaahay. Sababtoo ah Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa xaqiisa ku xigsiiyey xaqa labada waalid, wuxuuna Allah subxaanahu wa tacaala ku yidhi quraankiisa sharafta leh: ثم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. caabuda eebe hana la wadaajinina waxba, labada waalidna u wanaag fala. Ayadaas waxaan ka garanaynaa xaqa waalidka heerka la gaarsiiyey iyo sida uu u weyn yahay. Sidaas darteed waa inaan u baarnimo samayno waalidkeenna. Waqtigu waa waxa ugu qaalisan ee uu qofka bani'aadamka haysto, waana mid ka mid ah nimcooyinka qaaliga ah ee Ilaahay mooyaa aanay cid kale bixin karin. qiimaha waqtigu leeyahay waxaa inoo caddaynaya inuu Allah ku dhaartay meelo badan oo kitaabkiisa qur-aanka ka mid ah, sida habeenkii, aroortii, barqadii iyo casarka. Haddaba sifada saddexaad ee lagu garto ardayga guuleysta waa inuu maareeyo ama maamulo waqtiga sidaasi qaaliga u ah, ugana faa'iidaysto sida ugu habboon, sida inuu diyaariyo casharradiisa, ka shaqeeyo layliyada loo soo diray, iyo inuu sameeyo jirdhis si uu uga helo caafimaad jidheed iyo mid maskaxeedba. Ixtiraamka dadka kale. Astaamaha ardayga guuleysta waxaa ka mid ah inuu yahay arday ixtiraama, qadariya, si xushmad lana ula dhaqma macallimiinta iyo ardayda kale ee la dhigataa. Sidoo kale ardayga guuleysta guulihiisa kuma soo bandhigo dadka hortooda, isagoo ku jeesteesaya asxaabtiisa aan helin darajooyinka wanaagsan. Taas beddelkeeda waxa uu ka caawiyaa kuwa daciifka ee fasalkiisa ku jira inay adkaystaan oo ay xalliyaan ilaa ay ka gaadhaan heer ka wanaagsan sidii hore. Waqtiga imaanshiyaha. Qodobkani waa qodobka la isku dhaafay marka ay taagan tahay xilliga waxbarashada. Sidoo kale waa mid ka mid ah astaamaha ardayga guuleysta waa arday aan ka dib dhicin casharradiisa iyo waqtiga waxbarashadu ay bilaamayso. Kuraasta hore. Ardayga guuleysta waa mid had iyo jeer jecel inuu ka faa'iidaysto sharaxaadda macallinka, halka ardayga caajiska ah ee dhibta badan caadi ahaan uu ordo xagga dambe ama qaybaha dambe ee fasalka si uu uga gabbado indhaha macallinka ugana fogaado su'aalihiisa. Dulqaad ama sabir. Kelmadda sabir waa carabi dhinaca luuqadda, taasoo ka timid nuxur ahaan xejisasho ama adkaysi. Waxaa jirta halku-dhig carabi ah oo la odhan jiray waqtiyadii hore: hebel iyo hebel waa la dilay iyaga oo dulqaatay, taasi oo loola jeedo in la qabtay dabadeedna la garaacay, lana hayay ilaa ay ka dhinteen. Haddaba ardayga guuleysta waa mid dulqaata una sabra wax kasta oo la soo darsa. Sidoo kale haddii uu meel waxbarasho bilaabo sida machad, bareefad, iskool ama xitaa koorso gaaban, waa ka aan ka bixin isaga oo aan dhammaysan. dadaal. Qodobkani waa qodob iyo kama dhibcaan ah. Ardayga guuleysta waa mid mar walba dadaal ugu jira sidii uu wax cusub oo anfacaya u baran lahaa. Sharaxaadda cashirka kadib waa mid dib u eega, uguna noqda casharradiisa ama kala soo dhex baxa inta muhiimka ah ee ku jirta casharka uu qaatay xiisadaas. Wixii uu fahmi waayena weydiiya lana kaashada barihiisa. Ka qayb qaadashada howlaha dugsiga. Ardayga guuleysta waxaa ka mid ah waxyaalaha lagu garto ka qayb qaadashada howlaha dugsiga, sida bilicda dugsiga, qurxintiisa, nadaafadda, caawinta macallimiinta haddii ay wax u baahdaan, iyo sidoo kale iscaawinta ardayda dhexdooda. Yididiilo, rajo, himilo dhammaantood waa isku macnee. Qodobkani waa qodob aad muhiim u ah, waa qodobka ugu dambeeya, waana mid ka mid ah astaamaha lagu garto ardayga guuleysta. Waxaanan odhan karnaa waa sirta guusha arday badan. Haddaba ardayga guuleysta waa arday fisha wanaag, khayr iyo in wax walba ay ku dhammaan doonaan ama ay u dhici doonaan si wanaagsan. Waa ardayga naftiisa ka joojiya dhaqanka ah quusta iyo murugada faraha badan. Intaas ayaan ku joojinaynaa mowduucan. Way badan yihiin astaamaha lagu garto ardayga guuleysta, balse waxaan is leeyahay intii ugu muhiimsaneyd ayaad ka hadashay. Wixii aan qaldayna waa naftayda iyo shaydaan. Wixii aan saxayna eebbahay nagu anfaco. Waad ku mahadsantihiin daawashadiinna. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.